عكرم سويتيز waxaad ka helaysaa macaamiintoodu sarreyso keegu wuxuu qayb weyn ka yahay farxadda munaasabadaada waxaan meesha ka marnay noocyada kala duwan cuntooyinka fudud fast food kuwaas oo haddii aad mar dhamiso aad u xiisi doonteen dalba hadda oo nagala soo xiriir ebril xalshan 63 عكرم سويتيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقة أدنى لهذا وحنا كنا ولا يسوينا. Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay si kan xidho xiriir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga. Transfer Galaxy waxaan u doortay sida uu u sahlan yahay iyo sida uu u dhaqso badan yahay. مرمر بنكم ودا أما سكوب متلاعي وانت لا هي سفران ما فكري وفتا سوحنا سمعيني wanaagsan oo waxaan jamaal واو xafiiska si qurux badan lagu qaabay waa iga dambeeyay maba ogaan miya inuu san u qurux badan xafiiskayga hadda ogaalaha mar waa ka bedelan lahayo maxaa ku helay jamaal waxba ii sheegay kula qaabay xafiiska qofka qaabay waa fiirinaysaa ma laga yaabaa keegin saaca ma loo qaabay wallaahi ma fududa laakiin waa isku dayaa in isku dayda laftirkeeda iga badan عيني خير نكون رجينا هدا واحد سوق جيران يقدر يجي اوكي جميل ربيع في مكان يلا رجع فريورا حالك بدك سماع اوكي ما تحكيك صدى حيك صدى هاي حسب فهمي سيد عرورات يا فانا يقدش وارن مركان وين نقطة حاصل هاتي عكا جواب ماشي تصدى هاي ما أرنت حبون نقصد هذا أملينا هنا ما نقولي كيما هذي حبون غيرك لسه شكتي ما جران باي يو حكوا يدينا كي عباس وكحينا حبون برميت حيل قد على سكاي أبو أنا نحرست حق الصوابي ماشي أيضا 6 سنة جرتو waxaan u maleynayaa gabadha haddii aan baafino magaalada oo dhan inay soo dunto midaas aniga shaqo kuma leh waa hawl idinka idiin taalo wax laga weydiinayna ma jiraan walaalay cimri taga ceeb laguma sugotiyo shalayd waxaa diidaysa in isbitaalka timaadid bal ka waran reerka ee gabadhu hadday is yeelan lahaa yaa bixin lahaa ilaa adaa guriga hooyo aababa ka ahe walaalay macaane sheekadaas intaad iga xirto maalmahan oo dhan waxaan ku fakirayay jamaal inaan u guuriyo gabar waliba gabar aniga dooqayga ah adiga dooqaada haa ilaa asaga meel fadhiisan waaye wallahi amarnay taas midaan kaa filaya ma ah maxaa dhaca waalidka asaga yaqaan ilmihiisa waxay u xun iyo waxay u fiican midaas beena waalidku markaas sax ma noqdo imaqal waa ogtahay shalay markii aad isugu soo harteen guriga adiga ismahan inay ahayd talo xumadaada mar kale haddana talo xumadii oo kale dib ha ugu noqon waana ogtahay reerku inay soo oda lahayn alxamdulilah rabbi caalamiin maanta wiilashaada waa isugu kaafilan yihiin wayna ku filan yihiin mas-uuliyadda guriga inay qaadaan laakiin waxaa la yidhi af xuna ilka fiican sideeda kama soo baxaan walaali wiilkaas jamaal dheh sidiisaba ka leexo
oo dooqiisa faraha uga qaad hana cajujuubin anigu kale guuraan raalli ka ahayn ma ogolaanayo maba ogolaanaysid ogolamka in jamaal caasi ma ah laakiin adiga ha ku kalifin maxaa dhacnaya habartaa ma salaamaysid habaryar ma ku salaamin miyaa dhib ma laha ku salaama malaynaa see tahay fiicanaa kuu jeeda inaa mashquulsanayd alxamdulilah ismaale kiina intaa kusoo arkay basiyuulka ahay gaari waa soo kala firay waxaa umalaynaya inuu maal doono maxaa iga gal marka basiyuul ma aqaana ani kii saaxiibka ahayna kee daafade isbaan imtixaanka ka batay walaalay xildhibaanka waraa u yaala anigu koraan kala socdaay tay ku dhigayso maba aha mid loo dulqaadan karo dhibka isagaa soo doontay waxaan malaynayaa sida cumar oo kale isagoo la eryanaya in qolka jiifka lagu soo geli haba ka yaaba wax walba ay ku samayso maba ka xanaaqay abaa ee walaalay wuuba u jeedaa inaysan rabin muu faraha ka qaada mise asagaa adaa wax la wada wallaahi ka alle waxaan la wada ma jiraa ducaala adeer ah xildhibaanka anigana intaasaan ku xishmaynayaa ma fahantay laakiin sheekadan ay hadda wadaan iyo isburbursigan haddii ay joojin waayaan waxaan u malaynaya inaan kala reebi doono cajiib Sudah bang. ودواء أبو حرسي اسمه فوق جوا. أوكي هل حب كابتشينو عبال يا رب. راح حرس أنت؟ هبون أكو جوكي. كل جدول. ismaal waa lagu imaaday maxaa waxaa gacanta ku wadid xildhibaanka ayay keenay fadhigoona kuu sugayaa waxdada ma iska qaadanay adi 5 geemaa ku jirta waxaa ma joogta dheh way joogtaa ku dheh waraa iga baxbax bax ندعم ساتة fiican جديدة أنت تقول له maxaa waxaan waa dareen muujinayo in aad ku xiiseeyo moogta weli kaligaa ma ahan familkoo dhan waa sida ugu macquulsan aa kugu diidi karaa anoo waxba ku gaarsiinin wax gaarsiinsaa waxaan maxaa waaye hadiid aan kugu talagalay caruur ma ahan markaa shukulaato ii keenaysa may si degdeg aan ku soo gaday marka ugu horreysay oo aan hadiid soo gado waaye marka waan degdegsanaay si degdegsanaan u soo gada marka horta animaa ku dhahay diid ii keen maalintiisu ka dambeysay midiyaa wadatay wax dhib maa jira haa maalintaas ma rabin inaan kula hadlo haddan ma rabin inaan kula hadlo bax hoo intee soo bixin iyo bax maxaad jeceshahay hadiid nooca jeceshahay waan ku keenaa maxaa iga gala anima i weydiinaya hadiiddaa ii keenaysid istaag soo soco fiiri ismaan يعني dad waaweyn aan nahay moogta waa ku soo wacay in ay fahanto isku dayno baxaa ku dhahay mar dambena na soo noqon anaa xaq u leh soco
mahadsanid aboowe. adaa mudan xirsa u sheeg banaanka wax ku doontay waxaa dhaa walaasha abboona kuu fadhiso waa soo buuwa dhahay mayma loo baahna oo degdegtaas caadi waa tartiibkiisa ha imaado. xirs fani waaye. Absolutely. abboon waa ka xumaay in reerka islaaweysin xirsa ii sheega famil kale kula soo xiriir ma jiro. haa dhowr famil ay la soo xiriireen laakiinse tilmaamihii iskhilaafsan. familkiina bo hal gabar soo isku weynay. dagaaladii ma la helay? may aabaa raadiyey asna maxabada ku dhacday oo dhaawacnay ilaashii ifraaxna waxay ka mid noqotay caruurtii oo dagaalkaas ku dhintay. waxaa kama u baahan tahay? maya buu mahadsanid. idil miyaa ii waran noocaas maata maya codkaaga kartidinay hurday maanta qadaaba ku balansaneen saacadan sidee u hurday maxaa dhacay talkaa kama wareysid miyaa ma ku fahmin fariinaan kugu soo diray xalay markaan sii seexanayay aawo ma arkay xagee ku soo dirtay qaybta sms-kan kugu soo diray ma arkin waxaa u fahmay kulankayga inaysan muhiim ku ahayn waa ku baray faham ilis si fiicanaa kuu fahmay axmed waa markii labaadaa kulankayga baajinaysid aniga midaa aqbali kara ma aha idil ilis isdeji waa ku baryaa waxa isdejinaya ma laha balanta sideeda manoo ahaanaysaa may ama haa beriyaa ka dhigananaa idil jikada ma soo geli lahayn laakiin cuntadana u malays in lugta lagu walaaqayo oo adkaysa waayo. laakiin hal tala ku sii lahaay baastada suugadeeda markaad dalacaysid inta hilib kuu yaalo in la mid oo basal ay u diyaarso and maraq maajigan oo dhacay naga daa because caafimaadka uma fiicno. أنت هل مثلا يابع جكنا ضمنها مية هالحواج حتى أول بعنت فعلا كان مسوي إني horta nintiis daryeela aad u kala ku daro aan adi hadaa ku ahaan lahaaba dhuuman lahaabo naag dhan oo reer lahaa taasi ridka ma soo kacaysid aan naftaada le wax u qabso horta alxamdulilah reer waa leeyahay laakiin meeqa mar rabta inaan kuu sheego aniga uma imaanin inaan khadaam gurigan ka noqdo inta hol maahanoo haba yaraatib ma qabanayo hay cid howlkaaga baahan ma lahan naftaada yar iyo calooshaada le wax u qabso mideeda kale gurigaan hoshiisa dhan ba anigaa ku filan ma lagu baahnaadii ifya maxaa waxse uraayo jikada miyaa mise waa suugada istar xadkaaga waa soo dhaaftay suugada intaa hilibkeeda kaa dhigin iiga bax jikada inaan la hadlo bisaan u imaaday ciyaaraha qaba in la dheelo dhibaato ma jirto saaxiib waxay ahayd tacsida adeer ducale allah u naxariista inaan imaado dhinacan kala duugo laakiin sabab aan u iman waaya ayaa jirta ma jirto sabab aan aad ku wada hadalno
meeshan uma imaanin inaad ii ogolaatiin inaan kusii lugooyo waxaan u imid saaxiib hore inaan u tacsiyadeeyo saaxiib hore tacsiyadeyntaada waa maqliyin raaligelin ayaan ka bixinayaa wixii aniga aan sameeyey waana mudanaya waxa igu dhacay way jirtaa habboon inaan ku qanciyey adiga xamdi inaa wada socotaan xamdina aan u sheegay adiga inay ku heli karto habboon aniga gurigayga ayay joogto xilligaasna way rabti inaan qariyo maxaa keenay inaa xilligan ii sheegto hadalkaas sababtoo ah habboon uma caraysna hooyadaa iyo waxyaabaha ka hor istaagi weyse anaa ka shaqeeyay habboon ay kula hadasho kulana dhaqan sida ka caadiga oo kale waan ogahay qalad inaan laga soo noqon karin balse waxaan is dhahay intaa ka gaari karta ka gaar ulajeedkayga maahan saaxiibkayga inaan qiyaamo habboona ma hesha ayaan islahaa intaas ayaan u imid inaan kuu sheego haddii suurtagal tahay waxaan rabaa inaad si ka cafiso subeer shiftigaada kasoo baxooyaaye isoo marnoo sheeka ku hayaa maya taleefku mar maysa karan sheeko muhiim waaye ma wada caadi waa jaam marka kasoo baxday isoo mar istaag banaankiisa kugu sugaaye hayaa boowe bonay fariintaada waa arkay inay arrinta degtay jirta ma ii sheegtay ها marka gudaha geli okay iyo setay fiican jamaal soo dhawaad waa dhawaad aboonaye maxay ka dambeeyay soo kordhay jamaal waxaan ku wareersanaa qaabka ay suuragal ku noqotay nolosheeda hore halka waxaan ka xasuusto magacaygu kaliya inuu yahay haboon maxaa rabtaa inaa ii sheegto adwaaye ma laga yaabaana aniga aaba ducaale inaan u sheego hooyaday magaceeda hal mar xitaa fiir hadda ree cabdule waxyaabay ugu horey aniga ay ugu aqoonsadeen waxaa ka mid ahaa magaca gabadhooda maqan markaas kadib le ayaga xitaa la noqotay inaan iska leenahay xoogaa sanka afka iyo magacaaga iyo magaca gabadhooda oo is yeeshay saasaan u fahmay ha marka ka waran bal aniga haddii reerkayga aan raadin lahaa anigoo haysto ama magaca hooyaday ama magaca aabahey hooshsoo sidaan kama sii fududaan lahayn 100% marka taas waxay ka dhigan tahay hooyo amar inay tahay qofka kaliya laga heli karo macluumaadka naga dhiman haboon ha ka walwala midaas anaa soo dhameynayo ee adiga ma iga hubtaa in aaba ducaale uusan wax kale kuu sheegan oo ku saabsan arrimahaas aaba ducaale wuxuu ii sheegay inaa zaa'id u ooyn jiray wax hadalna afkayga aan ka soo bixin wuu i wada xaafaddii u geeyey xilligana wuu ii sheegay laakiin maalinta muusan ii sheegin waayo taas waxay u baahan tahay maskax qof dhalinyaro ah maskaxdaasna aaba ducaale muusan haynin labiska ka waran labiska waad ma xasuusan kartaa taas waxaan ka ogaan karnaa hooyo amran leh wax walba aaba ducaale uga baahannahay hooyo amran leh noo sheegi karto waxaa raadinta khabiirha ku noqotay markaan reerkaaga helno waxaan rajeynaa dadka kale reerahooda kale maqan yihiin inaan caawino hadda waxaa la joogaa waqtiga aan heli lahaa reerkeyga anna waxay ogtahay inaan soo dhammaystiro warbixinada kaloo naga dhiman biyaan ku keen maya iska rafa baxaya mayaan ku madax adeegay hay
talaaba iiga timid caawe meel dheer ma jirin ii waran caawa maxaa kaa cusub taladaada waan qaatay ninka jamaal ahayna waan u tagay weliba waxaan ku dhahay waan ku jeclahay maad ka leedahay maraxow inay taagtaa uuba ka bixi waayaba ugu dambayn muxuu ku dhahay jawaab cad ima siinin maya ambahaa wax cad ma jiraan miya aniga dhankayga wax walba waan caddeeyey warka isii baadi dhanka aboon maxaad ka haysaa akhbaar miska daysa raadinteeda albaabadaas way iga soo wada xirmeen raadin dambe iyo jecel dambe ma jiri doonto waa jeclaa maxaa u lehed marka habboon waan jeclaaday oo run ah jaceylka runta ma dhammaado ee naftaada been ha u sheegin jaceylka habboon wax badan ayaan ku waayey saaxiibkayga qaaligaa waan ku waayey kalsoonida familkaygana waa ay jabtay habboonna waan dhibaateeyey wax walba hadafkaaga ayaa ka muhiimsan waa inaad hadafkaaga gaartaa waxyaabaha kale waa iska hagaagi doonaan waa talo wanaagsan laakiin xaaladdeeda kuma fiicno maanta jamaal ayaan soo aragnay warkii isii ay meeshaas waraa igu dhaafa malaynaya waxba kuguma dhaafin raaligelin iyo tacsiideyn ayaan ugu tegay ilamaha inuu ku cafiyo wuu i cafiyey balse waxaan dareemayaa mar kale inuusan rabin wejigayga inuu arko oo maxaa ugu baahan taha marka saaxiibkayga qaaliga ayuu ahaa saaxiibadaada ka badan habboon ayaan raadinayaa waxaan rabaa inaan u sheego sababta ka dambaysa kala fogaanshahooda aniga inaan ahay subeer gaariga ii jooji subeer gaariga ii jooji yaa ku dhahay maxaa dhaad meesha igu soo celi waa saa ii maqashay waxaan rabaa si sharaf leh inaan u guuldaraysto wax walba waan khasaaray waxayna ii haraan ayaan rabaa wax inaan reebto fulay ayaa tahan waa sababta marka hore u guuldaraysatay fulay waan ahaa markaan qiyaamay dadka iigu kalsoonaa oo dhan taasna hadda way dhammaatay